شغل الفاضل قبل كلا واحد لا ده هو حنا هاي قبر ير أيضا ير تمد ودمدان قربيجا أيضا ير أنيقو ير أيان مد أي تري أو أن هاي سكول إيو ميدل سكول أنت بهالكن أيان وقبل حيل أي جامعة أي لا ده هاي دينتا أنا وحيل لا ده هاي سفي عنه ما أنا فاهم سنين عروسيله وتجد جري حفلتها وتجد جري لكن مركز دنبا waa soo baraarugay waxaan hadda u hawshaday inaan guursado waxa ay leedahay nin kasta markii aan la heshiiyo waxa uu soo hordhigayaa sawirro aan hore u galay ama cajallo la iga duubay anigoo jooga meel aan wanaagsanayn dhowr wiil oo aan isu calmanay inaan isguursanana arinta iyada ah ayaan ku kala tagnay ceebna kalena malihi oo hadda bini aadan waan ahay waa soo dambaabay waana toobad keenay hadeerna waan asfuranahay ayay leedahay sheekhu al-faadil arinta iyada ah ayaan rabaa inaad igala taliso ina duceyso falyatafadal mashkuuran wa ma'juuran sheekhu al-faadil waxaan codsanayaa inaad si fiican u dib istaagto dadku waa loofar waa la soo wada maray dadku lama wada wanaagsanayn waa bini aadan waa la wada dambaabay ragga iyo dumarka labadabana way haysataa arrintan waxaad arkaysaa markii gabar la doono ninka backgroundkiisa in la raadinayo waxaad moodaa inuu shaqo dowladda federaalka inuu shaqo ka dalbaday oo FBI oo kaleeta waxay qofka marka uu federaalka uu shaqo ka dalbado waddankan aan joogo Mareykanka background check-kiisa inta la qaado fara laga qaado la soo ogaado wuxuu ahaa jiray oo dhan weeye marka Soomaalidu dhaqankaas bilaabeen oo gabar aan doonaya ama gabar ayaa uu doonaya markaas qabiilkii ma ahan labadii iscalamaday ayaa waxa la leeyahay ninkan wixii uu ahaa jiray hala soo ogaado adoo gabadhana la talinaya arrintan xoogaa noo barbalaari falyatafadal mashkuuran wa ma'juura sheekhu al-faadil alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكاق عن الوقبي حقيقة وحيت يقف الباء إنه يهي بن آدم دنبابة كل ابن آدم خطاء حندونا يا إن المسألة مركو ركبر رجيو سوشيال ميديا هو دباتيدو الله قيب كميدوي وأمريه سوى وحل قرانيو للي يرد أن ككر لنا ورسوي ردينا أنه هبونين هجليننا الشبكة العنكبوتية waxa weeye waxa la guranayo waa miraheedii weey waxay u baahan tahay arintu qofka muslimka inuu dib isu xisaabiyo marka koobaad ha nacam qofku maraaxil buu soo maraa ha nacam qofka bini aadamka ah maalinba meel buu taagan yahay laakiin meesha ugu fiican waa meesha hadda gabadhu marayso oo inay ilaahay u soo noqotay oo ilaahay u soo toobad keentay oo ay xumaantii iska daysay oo ay xijaabatay oo ay asturatay oo ay doonayso inay hadda reer ay dhasho reer ay dhaqdo oo ay caruur iyo warshad ay soo saarto ummadda anfaca ayadana is anfacdo billahi tabaaraka wa ta'ala horta hanii'an lak waan kugu tahniyeynayaa waa tahniyad qofka waxa lagu tahniyeeyo midda ugu weyn waa tawbada iyo qofku markuu ilaahay u soo noqdo waxa ugu badan ee qofka lagula farxo waa inuu wadadii runta ahayd ee dhabta ahayd uu garto waxaan leeyahay waa marka koobaade wixii hore aad u soo martay oo dhan siday tahay ilaahay uga toobadkeen tabaaraka wa tacaala wax alla wixii sawirro ah oo horay aad u gelisay nadkana wax alla intaad ka saari karto adiga gacantaada iyo saaxiibada iyo ciddaas saban kartaba in alla intaad ka zuulin karto ka zuuli biillaahi tabaaraka wa tacaala anuuse intaan ka warqaba waxaa weeye sawirradu si kastoo xataa gabadhu ay maxaa la yidhahdaa ii keen ay u isticmaasho waxaan ognahay gabdhaha Soomaalida in badan oo kamid ah waxa la yaabaa inuu madaxeedu qaawan yahay iyo wax lamida midalan hadduusa shaygu waa shay dicaaro oo xun oo akhlaaqda ka baxsan oo dhaqanka ka baxsan hadduusa marka hore ahayn sawirradu ay ahaayeen waa wax laga wada gudbi karo kama waa laga gudbi karaa wax laga gudbi karin male billahi tabaaraka wa tacaala waxaase ku wanaagsani inaad qof walba u muujiso inaad taa'ib tahay inaad ilaahay u soo noqotay inaad ilaahay u soo laabatay attaa'ibu kaman laa dhanba lah qofka u soo noqday allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la mid yahay qof aan dembi lahayn ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay baa xumaantii aad gashay haddaad toobad saadiqada la timaado oo ay dhab kaa tahay ilaahay baa wanaag kuugu bedeli ilaahay baana wax wanaagsan kugu arsuqi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay baa makhraj ku siin ilaahay baa albaabada kuu furi mid kula noolaadoo ku jecel ayuu alla ku siin oo qalbigiisa laga masaxo wixii aad soo martay oo sawirradan hadda la arkayaba asaga laga qariyo oo kiyaalo cagaaran looga xidho ayuu ilaahay ku siin laakiin adigu toosnow
oo adigu dhabbaha toosan qabso oo istiqaamada la imow oo istikfaarta badi oo si fiican u xijaabo oo salaatuleylka tuko oo ilaahay bari oo sujuudda ku oy oo ilaahay u tadarruc oo wixii ku soo maray oo dhan waxaa weeyaan ka shallayto oo waxaa weeye farta dhexda ka qariin wabitaali ilaahay subxaanahu wa tacaala talada u dhiibo oo ilaahay tala saaro subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu tawbadda uu naga aqbalo dhammaan gabdhaha muslimaadka ah iyo wiilasha muslimiinta intabana waxaan leeyahay ilaahay ha lagu xidhmo subxaanahu jalla wacalaa gabdhaha muslimaadka ana gabadhu hadday soo noqoto oo ay toobad keento waxaa weeyaan ilaahay ha loo qadariyo subxaanahu wa tacaala toobadkeenka wax ka wanaagsan male wax ka qiimo badan male gabadhana waxaan leeyahay laa taxzanii ha murgid insha allah ilaahay baa waddo wanaagsan ku waafajiyey waadna ku dhammaystiran insha allah zawj wanaagsan oo saalixana waad heli doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaana rajaynayaa ducada aan kugu ducaynay in mataqaanaa arooska aan ka soo qayb galno qolka wanfoor biidni illaahi tabaaraka wa tacala oo laga sheekeeyo oo la yidhahdo waa gabadhii habeenkii su-aashiina weydiinaysay wallahu aclam ما شاء الله شيخنا الفاضل جزاك الله خير وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل إلهكم وحق إلهكم تشاهدون ما اللي بقلع نعم الدنيا آخر شيخنا الفاضل وحق إلهكم تشيو إلهي وناج خير يشرف على الله كل ميو شغل